الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا برنامج سوغانيد أي نود يارسي دارس كاسو أي نكسو قادن دون نكون إيجي دون نقيبها سوغانته قيحة السوغانته هديا لكورو يهائية أقونته أنت بدنا عاد لوجا هذا السوغان تلاذاي waxaan ka warrami doonaa ereyga suugaan iyo sidii uu ku yimid ereyga suugaan iyo sidii hore wixii loo yaqaanay hore loogu oran jiray ereyga suugaan iyo markii miyiga laga yimid la soo magaaloobay macnayaashii uu yeeshay iyo kuwii hore waxay ku kala duwan yihiin suugaan marka laga hadlayo waxa la oran jiray ereyga suugaan bariga miyiga aynu ku noolayn macnayaal dhowr buu lahaa waxaan ka soo qaadanaa in kooban waxaa ka mid ahaa caleenta cagaaran ee dhulka dushiisa iyo dhirta oogadeeda ku taalay waxaa ka mid ahaa saxan-saxada iyo qayoodka waxa kaloo loo yaqaanay budada dixiinka ah ee buurbuurka iyo jiriidha midna lahayn haddaan sii yar iftiimino qaybaha aynu sheegnay marka la yidhaahdo sahan la diro dadkeenu noloshooda hore reer guuraa marka la leeyahay dad aan meel kaliya deginay noloshoodu xoolo ku xidhan tahay xoolahana noloshoodu daaq iyo biyo ku xidhan tahay bay ahaayeen hadba meeshii daaq iyo biyo laba loo guuri jiray meesha la degaya markay ku gabaabsiyaan ama ku yaraadaan baadkiyo biyuhu waxa la diri jiray rag la yidhaahdo soo sahamiya halkan meel beesha u dhaanta oo waata la yidhaahdo saddex waa gardara saddexna waa galabsigoodo reerku inuu guuraa waa gar inuu sahan la'aan guuraano waa gardaro waxay la kulmaana waa galabsigood baa leeyay marka sahankaasi marka ay dhulka intay mari karaan ama fardaha wateen ama lugu ahaadeena soo arkaan soo noqdaan bay waxay oran jireen meel walba saytay markay qeexayaan markay meel dhir iyo biyo la sheegayaan oran jireen meel heblaaya waxay lahayd suugaan iyagoo uga jeeda meesha dhirteedu way cagaarneed dhulkeeduna doog buu lahaa marka roobku soo socdo soo qabsado saxan-saxada ama neecawda ka horeysa soo dhacda ayaa la oran jiray suugaan baa dhacaysa si lamid ah roobku marka uu da'o ee uu qaado neecawda sayaxa wadatee soo dhacda roobka gadaashi ayaa la oran jiray qayood baa loo yaqaanay suugaan baa dhacaysa marka waxa la yiraahdaa saxan-saxada iyo qayoodka bariga hore suugaan baa dhacaysa la oran jiray sidoo kale dadkeenu marka ay rabaan inay shuuro karsadaan markay midhaha ridqaan ee labadii dhagax madaxinka iyo wilaha la oran jiray ku ridqaan masaf baa lagu shubi jiray waa la haadin jiray jiriidha buurbuurka la maaha inta dixiinka ah ee budada ah baa la oran jiray waa suugaan isku soo wada dub suugaanta markii magaalo la yimi markii nolosheeni isbedeshay hugii la xidhan jiray baa isbedelay hoygii la geli jiray baa isbedelay hungurigii la cuni jiray baa isbedelay wax badan oo nacaynkaas ay isbedelay erey bixintiina qaar baa marka ereyga suugaani uu ka yimid ereyadii kale loo yaqaanayo waxa lagu qeexaa markii la yiri afkii iyo wixii la qoray ee qaab suugaaneedkii la soo koobay suugaantu waa saxan-saxa suugaantu waa iidaanka iyo koosaarka hadalka baa leh oo loo jeedo suugaanta waxa lagu soo koobay waa inta nuxurka leh ee afka dabadeetana laba loo qaybiyay suugaantii laba loo qaybiyay tix iyo tiraab baa loo qaybiyay tix baa markaa waxa la yiri tix iyo maanso hadda waa isku macno tix iyo maanso waa isku macno ereyga maanso marka la qeexayo erey bixintiisa wuxuu ka kooban yahay baa la yiraahdaa laba erey oo kala ah maan iyo so maan waan garanay maan waa garashada maan waa garaadka maan waa xiska maan iyo so ereyga so Soomaaliyan marka la sheegayo waxaan iskula fahmaynaa neefka hilibkiisa baa neefka waa la qaybiyaa af Soomaaligeenu wuxuu ka koobnaan jiray si wuxuu u ooli jiray marka dadkeenu ay aftahmada adeegsan jireen laba xaraf oo iska soo horjeeda ama laba xarafba laba arrin oo iska soo horjeedaba isku xaraf bay ahaan jiray sida gar iyo gardaro bar iyo beer haddii la ku rooyay sida labadan inoo yaalo kala tix iyo tiraab waxa la yiraahdaa neefka marka la qalo laba u qaybsan yahay so iyo saan baa la yiri
neefku wuxuu u qaybsan yahay so iyo saan. socdii waa inta saanta ka hooseysa. socdii baa laba loo sii qaybiyey. waxaa la yidhi waa laf iyo lud. luddii baa laba loo sii qaybiyey. waxaa la waa jiir iyo jibaadh. haddaba fiirso waxaan u jeedaa ereyga so macnihiisa maasadii hadraawi allahu naxariistay sirta nolosha waxaa ku jiray socda iyo ka gura dhuuxa. ereyga so markaa waa nuxur ama waa wax qiimo leh ama waa wax qaaya leh. marka waxaa la yidhahdaa maanso markay erey bixinta sheegayaan waa wixii socdii maanka ka soo baxday baa maanso la yidhi. macnaha waa miidii iyo murtidii maskaxda ka soo baxday baa la yidhi waa maanso. dee inta badanna cidda maansootaa bulshada ehlu caqligeedu ahaa ama dadkeennaa hore reer guuraaga ah qofka hal abuurka ahay qiimuu ku dhex lahaa. mar labaad qofka tix lagu soo dar qofka qiimo la doonaya in la yidhaha qofkaasi qiimuu leeyahy waxaa la odhan jiray wallaahi qofkaasi waa qof tixgelin leh. maxaa looga jeedaa tixgelin? waa qof tix lagu daro. macnaha midna ogow inuu tixdu qofka wanaag ku soo galo iyo inuu qofku tixda dhaliil ku soo galaa laba wuxuu kala fog bay ahaan jireen. oo markuu ninku yidhaha waan kuu gabi aad buu uga biqi jiray. labadaba uu uga biqi jiray. midda koobaad waa in uu xumaan ugu gabiyo oo xumaantaasi ladad iyo facyo kala dambeeyo caruurtu awowga u yahay sugta inuu noqdo. macnaha dhaliil dhaxal gasha oo dhaliil tegi weyda inay noqoto iyo inuu habaaro oo tixda guhaanka ee habaarka ahi sideeday u dhacdaa. barnaamijyadeennaynu qaar ku soo qaadan doonaa tixihii guhaanka ahay laysidhi iyo siday u dhaceen oo sidii loo guhaamay bay rag ugu dhacay habaarkii. laakiin in tixda wanaag iyo ammaan laysugu daro qiimo qofka u noqon jirtay. waabaa la yidhi taariikhdayna dee badi ma qorne ah waa abka soo gaadhiyo odayka sheekeeye. xilli baa la damcay in qolo ku duusho macnaha xoola kala dee waatii nolosheenu xoola kala dhacaya waxaa iskaga badnaan jirtay. deedna nin baa ninku yidhi hebelow dagaalkaa waynu geli doonaa haddaadna hogaamisana waynu guulaysan doonaa sidii lagaaga bartay. gabay baa tirin doontaa. faaraxafa inuu ahaabaan filayaa ninka sidaa lagu leeyahy inaad hergabaygaa tirin doonta wuu yidhi meeligaga soo dar. sidii bay u dhacday. gabaygii uu tiriyey ninkii uu ku soo daray qumana xayla wuu garan halkaan qiimo ku lahaaye. xaylaa la odhan jiray markaa ninkan la gabayga inaad hergto. markaa tix iyo maanso waa isku mid. qofkaasi tixgelin buu mudan yahay ama qofkaasi tixgelin buu leeyahay. qof qiimihiisu in gabay lagu sheego dee gabayguna waa wax dhaxal gala waa wax taariikh qaada waa wax dhaqan xambaara. sideer ereyga maansana waxaa la yidhaahdaa waa socdii maanka ka soo baxday nuxurkii maanka ka soo baxay. haddaba maansadu maxay kaga duwantay tixdu maxay tiraabta kaga duwantahay? 3 qodob bay kaga duwantahay. xaraf raac, miisaan iyo habdhac bay kaga duwantahay. xaraf raac oo maxaa tahay bay isweydiin marka. erey bixinta xaraf raac laba erey oo dadku isku khaldaan baa jira. waxay isku khaldaan xaraf raac iyo qaafiyad. waa si kala duwan yihiin. maansada suugaanta carabta inta badan leh qaafiyada oo waxay xagga dambe kaga dhammaataa xarfo isku mid ah. way ku dhammaataa ereye isku mid ah. oo dee go'aankay gaalada ahaa Quraysheed nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray waa kuwii quraanka gabay ku sheegay. aayado dhan oo quraana ayay suurada dhan baa waxay ku dhamaadaan xaraf isku mid ah. suuratu ikhlaas ba kamid ah. markuu rabbi bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. deel way ku dhamaanaysaa. sadaqallahu alazim. marka waxaad arkaysaa taa waxa la yiraahdaa xaraf raac waxa la yiraahdaa qaafiyad. inaga ragga qaar imika dhalinyarta qaar baa wax curiyaa waxay u sameeyaan qaafiyada. nin baa galay maqaaxi wuxuu dalbaday maqbaasad mid baa ka eegay daaqad wuxuu qaatay baangad wuxuu ka dhigay madaxa daasad
حرف اسكو ميدا حاجة دمك كده ماتي لكن حرف راعو حاجة هروق لي كرا حاجة دحوق لي كرا حاجة دبوق لي كرا مركا حرف راع مركا لقيحي waa xaraf ku soo noqnoqda tudc kasta oo tixda kamida ama tudc kasta oo maasada kamida raga curiyana waxa la yiraahdaa hebel waa tixmaal hebel waa maasayahan waa nimanka hal abuur kala martay xaraf raac marka laba u qaybsama wuxuu u qaybsamaa shibane iyo shaqal shibane marka la sheegayo ee la leeyahay shibanuhu waa ba ilaa ya inta u dhaxaysa 22 xaraf mid kamid ah hal abuurkeenu ma adeegsado khada laga saaraa laakiin ba iyo ta ilaa ya laga gaadhiyo xaraf kasta oo kamid ah sidiisa loo adeegsadaa haddii tuduca adigoo ba adeegsanaya tuduci ba laga waayo tuducaasi uu jaban yahay baa la yiraahdaa xaraf raaci baa ka maqan meesha baaris adaan tegin ama boon ka sheekayn ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn barashada dalkaaga horta laga bagtaayo bariya la isku hawla balcad jawhar shalambood barakada qoryoole bixin duula laalays beeraha wajaale lagu reebay baahida indhaha basaaso boorama ma aragteen asida daraawi ku jirta marka xaraf kasta ba kasta adaa soo noqonaysa waa la xaraf raacay bisaylka haduu qof diido biraynta ku faani waayo inuu binacaashiqiisa ku baayaca geeridiisa baraarali baa yaqaana balada ta duni tooxsa mooyeenina taab ku qaban waa qofba wuxuu ka taransaday teel ku noqoto inkastoo ku talax tago wuxuu tabayaba maqan tagtadiisa xiisay tiisa joogta haaraan kaga daran timaadadu tixdu abaarta aniguba tib culus iyo tukubaan cuskanayo kuma taagna lugahay haygu tiirsan laan gari adaa koofi loo jiitay oo dunida joogay adigaa jidkii lagu wada jimc la'aaneed jahannama la geeyo hadaad aakhira u jahatay jabkay daraawish ku mariyeen mari jawaabteeda waa jaan xad waa sida hadii xayska daayiyo xilliyadu ku doorsheen ma ogtahay xildiidow tiyo xagaayo dhulku xaaluf yahay baa geelaba xusuusun inta lagu xirgeeyaa xaashay adduunkana xoolo badan nin ba iska leh xayn baan indhaqaya nina looma xaadirin kha markay tahay iyada waxba laga tirin maayo daadoo kale dadku waa nin ladan oo rabbi duuyo siiyo danta ruux la liito misna duunku hoosiya damciisa kula faqay noloshu la daris yahay daahin uu ku qariyo aan dushiisa laga garan diifta iyo baahida dareen baa haga naflaha han iyo damac baa wadwada dadaalkuna ruux ma gabo aqliga darajada ku haga libay tahay kartidu هذا فيرسو وادرس الدنيا دو لبا تروح كدرسته وادقل الدنيا دو لبا تروح كدرسته معناها حرف راع مركان كورمينو شبانه iyo shaqal baa loo qaybiyaa shibanuhu waa ka shaqalku hadaba muxuu kaga duwan yahay shibanaha shaqaladu waa 10 shan dhaadheer iyo shan gaagaaban shanta shaqal isku meel bay soo gali karaan halka aynu lahayn hadii baata koowaad laga waayo talabaad ba ay ma gali karto tuduca koowaad tuduca labaad waa in ba laga helaa a iyo e iyo o iyo u baa la isku xigsiinaya oo waxa la yiraahdaa iyadu laba way kaga duwan tahay ta kale shanta shaqal isku si baa loogu dhawaaqi karaa a e i o u laakiin markaan shibanayaasha ku dhawaaqaya qaar anigoo dabnaha isku qabta mooyo kuwa dhawaaqi karo qaarna aan dabnaha isku hada ba kuma dhawaaqi karo aan dabnaha isku keenin ma baa laakiin na wa ya anigoo dabnaha isku keenin ma ku dhawaaqi karaa sidaa daraadeed shanta shaqal isku meel bay gali karaan waraaba ayaa yiri baadidii islaamkiyo anoo aaran geel cuna iimaan la'aantii alla iga hadeeyo astaghfiru labaanri aamin baana kala baxay magacii inkaaraa orgibaanin gowracay isagoo ujeeda leh indhashu u sulaylaan waa amaanadaadee sii ilaali buu yiri markuu tagay islaamkii in yar haduu ka maqan yahay agagaas durwaagi amba qaata laabada ursay jeeyihii hore wuxuu yiri udgoona oo xalaal baan helay af balaadan kala wax arab oo man soo saar alamsi la fiye jeed in yar neefkii kama tagin duqay mashadiisii eedeysanii bood oo diya dhartii jiri isagoo ordaayo afar qaadayuu yiri
waxaa igu ogaataan wixii aan ahaan jiray. dadku waa addoomo lama siin awoodaha alla lagaga maarmee kali lagu ahaadee ha ilaawin baqashada. waxaa tahay ogaaskii ifka loogu hiishee magantaad ka oday tahay marti adigu ha u noqon hana lumin awoodaha lagu fura albaabada xujadoodu adag tahay. macnaha shaqaladu waa kuwa sideer shanta shaqal waa la isku xigsiin karaa laakiin shibanayaashu way ka duwan yihiin. waxaan ku soo gabagabaynaynaa qaybaha suugaanta ee aanu soo sheegnay iyo kalkii koowaad qaybaha dambe iyo haddii ilaahay yidhaahdo maalinta xigta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.